ciidamada Ethiopia ku sugan dalka Soomaaliya qaybtana ka ah howlgalka AMISOM ayaa la wareegay deegaanka Ceel Cali oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo muddo ay gacanta ku hayeen kooxda xarakada Al-Shabaab wariyaha gobolka Hiiraan ee telefishinka idaacadda SBC Cusmaan Aadan Carays ayaa warkaasi baladweyne inooga soo diray iyadoo howlgalla ay sameeyeen ciidanka dalka Ethiopia qaybka howlgalka AMISOM ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Ceel Cali ee dhanka koonfur galbeed kaga toosan magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan deegaanka Ceel Cali ayaa in muddo ah waxa ka arriminayay xarakada Al-Shabaab sidii weyn ugu soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya si aan wax badan uga ogaano gudoomiyaha deegaankaasi Ceel Cali Yarow Umar Abikar oo qadka isgaarsiinta kula xiriiraysa waxa uu ii sheegay in howlgallada ay sameeyeen ciidamada dalka Ethiopia ay kula wareegeen gacan ku haynteeda deegaankaasi uu yahay mid wax kala socdo isagoo dibajoog ka ah tan iyo markii la soo magacaabay dagaalladan hadda howlgalka ah oo ninka lagu shaqeynaya ayuu qayb ka yahay marka boqosaan anaga deegaanka hadda aan gudoomiyaha ka ahay boqosaan buu ka bilaabanayaa ilaa dowladda waqo intaasna marka hadda waxaa la hayaa Ceel Cali boqosaan iyo dheer magaalada Fiicaso ciidamadani halkaasi may ku sii sugnaanayaan mas waxa jira deegaano kale ay ka tirsan ama hoos yimaada magaalada Ceel Cali ay ciidankan Ethiopia ay tagayaan waa sida intii ay nimankaasi ku jiraan ama ay haystaan tuulo iyo magaalo weyn iyo way istaagayaan ciidamadu way soconaysaa ma ku joogsanayaan marka tan iyo markii ay dawladda federaalka Soomaaliya ku soo magacawday ma aadan tagin deegaankaasi Ceel Cali haddaba marka qorshahaaga muxuu yahay inaad deegaankaasi aad gaarto deegaankaasi hadda ka hor baa weli xilligii hore ayaa waxaa jirtay in alkiiga laga qabtay waan tagnay dhowr badan aan joognay meelo kale oo dib loo qabsaday oo dib loo waxayna weydiyay hadda bilooyinka dalwada sugnayno waatii meelo badan laga meelihii iga soo baxay ayay gashay haddana dib ayaa loo xoreynayaa waa howlgal guud oo ay wadaan ciidamadan Afrika Ethiopia hadda baayi boqol Hiiraan howlgalka ka wado waana waxaan ognahay oo waxa naga qarsoon ma aha saraakiishoodii iyo hoggaankoodiiba waan aragnay hadda iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dowladda federaalka ay ogtahay marka hadda howlgalkaas waa socdaa si soconaya haddii ay markaasi ciidamada Ethiopia ay la wareegaan deegaankaasi Ceel Cali gacanta ay ku hayaan waxaa wararkii nagu soo gaaray dad badan inay ka barakaceen yaa markaasi deegaankaasi lagu xukumay dad badan waxa la sheegay inay ka barakaceen oo magaaladii dadku ay ka sii tagayaan ka war arrinkaasi waa karan kartaa adiga waxa weeye min Soomaaliya jooga tahay in wariyaha tahay meelo badan oo lagu dagaalamana dadku way ka qaxayaan kii joogayna waa udiidiya oo ka soo leeyahay kan kalena waxa uu la imaanay lama ogo waa laga baqayaa marka qaxa waa dadka wax oo caadi weeyo 22 sano aan ku soo jeeday dawladda dadkii ay caadi dhigto oo maamulku shaqeeyo oo nabadda la xasiliyana idii meeshaas la wareegtay in bay dadweynaha diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan Cusmaan Aadan Carays idaacadda iyo telefishinka SBC baladweyne